safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Nairobi Carlo McCarthy ayaa sheegay in dowladdiisa ay Soomaaliya iyo Kenya kala shaqayn doonto in muranka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya ay ku dhameeyaan miiska wada hadalka. Wareysigiisii wargeyska Daily Nation ayaa safiirka waxa lagu weydiiyay su'aal ahayd waa maxay go'aanka Mareykanku ka qaatay muranka xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya maxayse yihiin xirfadaha diblomaasiyadeed ee caawimaad uga geysan karta arrintan si loo xalliyo. Safiirka ayaa ku jawaabay waa arrin in degdeg lagu xaliyo mudan waxaan ka shaqaynaynaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan. waxaan Muqdisho u tagay inaan la hadlo madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegay in kiiska maxkamadda laga soo saaro waxaan u sheegay Farmaajo iyo Kenyatta in dhibaatada ugu weyn ay tahay in laga adkaado al-shabaab waana wadada kaliya ee aan uga faa'iideysan karno dhaqaalaha iyo kheyraadka badweynta. madaxweyne Kenyatta waxa uu sameeyaa wax walba oo awoodiisa ah isla markaasina uu dalkiisa ku doonay in arrintaasi uu ku xaliyo ayuuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyay isla markaasina uu kaga jawaabay su'aashii lagu weydiiyay safiirka Mareykanka u fadhiya Nairobi. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay dib u dhigtay dhageysiga dacwadda badda isla markaasina ay asteysay toddobaadka ugu horeeya bisha June sanadka 2020. go'aanka maxkamadda ayaa yimid kadib markii Kenya ay dalbatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda si ay u soo abaabusho sharciyaqaanadeeda. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ogoshahay dib u dhigan waasa inay noqotaa markii ugu dambeysay balse siyaasiyiin badan ayaa su'aal ka keenay sida ay Soomaaliya dib u dhacan ku ogolaatay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa keenay su'aal ahayd in dib u dhacan uu bilaa u yahay wada ka baxsan maxkamadda in la doonayo in lagu xaliyo kiiskan waxaase xilliga dacwadda lagu aadiyay xilliga Soomaaliya ku jirto marxaladda doorasho. wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya James Swam ayaa dardargelinta sharciga doorashooyinka kala hadlay kusimaha madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare. warso saareheena caawa Maxamed Cali Maxamed ayaa noo hay faahfaahinta warkan. kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta kulan looga hadlay dardargelinta sharciyada muhiimka ee horyaala golaha shacabka oo la qaatay wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya James Swam. kulankan ayaa waxa uu ahaa mid intiisa badan diiradda lagu saaray waqti dhow in la helo sharciga doorashooyinka qaranka si guddiga doorashada ay u diyaariyaan doorasho dalkan ka dhacda. waxaase wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya James Swam uu sheegay in qaramada midoobe ay taageeri doonaan si sharcigaasi iyo sharciyada kale horyaala golaha shacabka sida u dhaqsiyaha badan loo meelmarin lahaa. waxyaabaha kale ee looga hadla shirkan ayaa ka mid ah arrimaha dib u eegista dastuurka dalka. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhankiisa cadeeyay in taageerada qaramada midoobe ee golaha ay tahay muhiim dhammaan qodobadaas uu soo jeediyay wakiilka ay wax ka qaban doonaan. sidoo kale James Swam wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa waxa uu isla maanta kulan la qaatay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaase isna ay ka hadleen sharciyadaas aan kor ku soo sheegnay ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo sharciyada kale ee horyaala golayaasha aqalka sare iyo shacabka. kulankii dhexmaray James Swam iyo Cabdi Xaashi waxa warbaahinta uga warmay Cabdinaasir Ibraahim Guuleed oo ah agaasimaha xafiiska gudoonka aqalka sare. gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xafiiska ku qaabilay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe mudane James Swam. gudoomiyaha iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa ka wada hadlay arrimaha shuruucda horyaala golaha oo ugu horeeyaan kuwa muhiimada gaarka u leh dhinaca Soomaaliya. gudoomiyaha iyo wakiilka xogayaha guud ayaa sidoo kale ka wada hadlay xaaladaha guud ee dalka halka ay marayaan. waxay sidoo kale ka wada hadleen sidii aqalka sare u gudan lahaa doorkiisa matalaad ee ku aadan ilaalinta danaha dowlad goboleedyada dalka. kulanka ayaa guud ahaan kusoo dhamaaday jawi aad u wanaagsan. weli lama cadeen nooca doorasho ee dalkan ka dhici karta sanadda 2021 waxaase golaha shacabka ay gud u saareen diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran iyadoo madaxdii hore dalkan ay ka digeen muddo kororsi. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray dalka Ruushka oo ka furmi doona shirka wadamada Afrika iyo Ruushka. cali ilmi salaad hayno faahfaahiyo warkan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Soji ee dalka Ruushka halkaas oo maalinta beriyaha uu ka furmayo shirweynaha dhaqaalaha Ruushka iyo Afrika. shirweynahan oo socon doona muddada u dhaxaysa 23 ilaa 24 bishan Oktoobar ayaa ka qayb galaya madaxda dalalka ku midoobay madasha ururka midowga Afrika waxa ayna kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac dagaalka ka dhanka ah argagixisada kor u qaadista dhinacyada amniga socdaalka iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha. wafdiga dowladda Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweynaha ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Soji ee martigelinaysa shirkan
waxa ay kulamo gooni-gooniyaha ay la yeelan doonaan madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa shirka iyada oona ay kasoo qaybgalayaan hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo Ruushka shirkado waaweyn oo dhanka maalgashiga ah iyo golaha guud ee ururka midowga Afrika kulanka Ruushka oo la qaadanayo madaxda Afrika ayaa imaanaya xilli madaxda Afrika kulamo hore noocan oo kala ah ay la soo qaateen hogaamiyaasha dalalka China iyo Japan